markii aan ka tegay ciidanka waxaan ku laabtay Moscow. waxaan maray tuulo yar anigoo aan ogeyn inay halkaas jirto sharci khasab ku ah in si buuxda loo baaro dadka dibadda ka yimaada. waxaan u dhiibay aqoonsigaygii laakiin qofna igama uusan fiirin. waxay i weydiiyeen inaan boorsada saliina markaad aragtid iska dhaafe oo heesaha iyo waxyaabaha munkaraadka ah waad sheergaraysaa maxaa diidaya inaad sheergarayso saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam walaal cabad waa jimcee aan ku salina nabiga sallallahu alayhi wasallam fiidiyowga inta aad awoodidna sii gaarsi si ay u saliyaan nabiga adna aad ajar u heshid iga saaro. baaritaankii kadib waxba ma helin laakiin sarkaal ayaa wax ku arkay jaakatkayga. dharka ayaan kor u qaaday anigoo tusaya mindi. boolisku waxay i weydiiyeen inaan gacmaha kor u qaado. ma aanan naxin waxaanan sheegay inaan ogolaansho u hayo inaan sidato. sarkaal ayaa i weydiiyey inaan mindida dhiibo ma jirin wax kale oo aan samayn karay marka laga reebo inaan adeeco. sarkaal ayaa mindida baaray waxayna ahayd mindi nebal ah. isla markiiba waxay rabeen inay i xiraan. gacan xir ayaa la igu sameeyey waxayna isku diyaariyeen inay xarunta booliiska i geeyaan. aad baan u wareeray. waa markii ugu horraysay ee wax caynkan oo kale ah igu dhaca. aad baan ula yaabay. sarkaal ayaa u maleeyey inaan dhibsi ku jiro. isagoo arkay inaan cidna ag joogin ayuu isku dayay inuu i garaaco laakiin falcelinkaygu wuxuu ahaa mid iska caadi ah. garaacaas waxba igama gelin. sarkaal ayaa baqay. qorigiisii ayuu soo saaray wuxuuna igu amray inaan gaariga raaco. xaaladdan waxaan awooday oo keliya inaan la shaqeeyo si aan u arko waxa ay qorshaynayaan. markii aan gaariga fuulayay sarkaal ayaa isku dayay inuu igu soo weeraro si lama filaan ah laakiin waxay u dhacday sidii qof biir adag garaacaya. haddii tani ay goob dagaal ka dhici lahayd hadda wuu dhiman lahaa. xaruntii booliiska ayay i geeyeen waxayna iga qabsadeen alaabtaydii. ugu dambayntii waxay i gelisay qolka xabsiga anigoo sugaya tilmaamo. gudoomiyaha boolisku uu xanaaqay markuu ogaaday in qof ka hooseeya uu caqabad ku noqday. wuxuu ii yimid ushiisii isagoo raba inuu cashar i baro. qof ayaa ku dhiiraday inuu dadkiisa caqabad ku noqdo haddana qiimaha ayuu bixinayaa. madaxu si xoog leh ayuu usha u ruxay laakiin wuxuu sidoo kale ogaa inuu dib u dhici doon. xataa wuxuu soo saaray ushiisii korontada lahayd si uu ii weeraro. tani waa i xanaajisay isla markiiba ayaan iska difaacay. gudoomiyaha boolisku uu la yaabay isagoo isku diyaarinaya inuu falceliyo laakiin sarkaal kale ayaa joojiyey. madaxu aad buu u xanaaqay. waxay ahayd in ku-xigeenka uu rabo inuu arko. madaxu waa inuu xanaaqiisa xakameeyey. wadajir ayaan xafiiska u tagnay. ku-xigeenka ayaa wax yar i weydiiyey. ma aanan jawaabin. si lama filaan ah ayaa la ii xiray anigoo aan aqoonsigayga la baarin welina ma aanan garanayn waxa ay rabeen inay sameeyaan. isla markaas ayaa madaxii xarunta booliisku soo galay. wuxuu sheegay inuu jiro qof xabsiga ka soo baxsaday inayna si adag u ilaalin inay tahay dadka dibadda ka yimaada. markuu arkay anigoo hortaagan wuxuu muujiyey yaab iyo xiiso. wuxuu rabiyey inuu aqoonsigayga baaro. markay arkeen qof kastaa wuu naxay. waxaan ahaa gaashaanle Jamanof waxaanan joogay halkaas. madaxu wuu xanaaqay xarigaas aan sharciga ahayn darteed. wuxuu aflagaadeeyey saraakiisha isagoo ku tilmaamay doqon laakiin taasi waxay ahayd keliya muuqaal hore. runtii isaguna wuxuu ahaa qof laaluush qaata. madaxii ayaa alaabtaydii ii soo celiyey laakiin wuxuu ku ciyaaray MBT-gaygii. waxaan tagay xafiiska madaxa. madaxu wuxuu MBT ka saaray miiska. ficilkaas wuxuu dhibaato u horseedi lahaa xarunta booliiska. uma aanan imaan nidaam isku mid ah laakiin waxaan lahayn darajo isku mid ah. madaxu wuu raali gelinayay. meesha ayaan eegay qurxinta iyo cabitaanaduna waxay ahaayeen kuwa qaali ah. waxay u muuqatay in xarunta booliiska tuuladu ay aad u musuq tahay. ma aanan rabin inaan wakhti lumiyo. uma aanan ahayn dad isku nooc ah mana aanan rabin inaan sheekaysto. waan baxay. madaxu aad buu u xanaaqay. xafiiskii ayaan ka baxay waxaanan la kulmay haweeney. waan eegay isla markiiba ayaan soo jiidasho dareemay. haweeneyda magaceedu wuxuu ahaa Naswa. waxay ka shaqayn jirtay maqaayadda tuulada. waxay u timid inay soo saarto ogolaanshaha ganacsiga. waxay dhiibtay lifaaq lacag ah waana inay tagtay laakiin madaxu wuxuu ahaa mid xanaaqsan. Naswa ayaa hadda soo gaartay. isagu wuxuu ahaa ninka tuulada ka cabsida badan. qofna kuma dhiiran karin inuu diido. isla markaas waxaan ku jiray inaan baxo. iska caadi ayaan MBT-gaygii raadiyey laakiin waxaan ogaaday inaan xafiiskii kaga tegay. dib ayaan u soo laabtay si aan u soo qaato xilli xaaladdu ay sii adkaanaysay. xafiiskii ayaan mar kale soo galay.